haddaba aqoonyahanka maanta joogo waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka wadaniyad badnaa tuugii xilligaas joogay. dadkii xilligaas maanta joogo ee gebigooda warbasoore ah, dakaatiro ah, ee ka yar PhD iyo magister haysto, haddii xilli loo magacaabo midka waxaa ka bilaabaa soo ku dhici lahaa kow isla markiiba soo ku hantida dadweynaha soo ku boobi lahaa. tuuga xilligaas jooga marka jid hortaagnaa ee u soo baxaba ee qori u soo qaatay inuu wax dhaco ayaa hantida dadweynaha ka leexday. maanta adiguna waxaa sheeganaysaa waxaan kusoo jirnay taariikhda gaabneed ee aan uga hadlaynay xisbigii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL. waxaan rabnaa haddii alla idmo marka laba dhacdo oo dhacday xilligii SYL dhacday ama dhacay inaan idiin sheegno haddii alla idmo laba dhacdo cajiib ah. waxaa iga sheekeeyey odayaashii waaweynaa ee xilligaas joogay soo gaaray ayaa iga taariikheeyey oo afkooda ayaan ka qoray. dhacdada koowaad waxay tahay oo aniga cajab gelisay, idinkana cajab geli doonta haddii alla idmo, tarjumana u ah Soomaaliya xilligaas, Soomaalidu xilligaas sidii ahaayeen iyo sidii u jeclaayeen xornimadoonka. waxaa bilaamatay waxqabadkii dhalinyarada ayaa bilaabmay. waxaa loo baahday dhaqaale, ilaa waddanka gumaysta ayaa haysto, waddanka gumaysta ku jiraa, dhaqaale loo baahanya. marka dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo halkay joogaan ayaa loogu tegayay wallaahi hay-adda xisbiga waxaa loo baahan yahay dhaqaale, waxaa loo baahan yahay maaliyad lagu maalgeliyo. gaariya ayaa Muqdisho laga diray, lagu dhejiyay calanka SYL ilaa wuxuu maray halkaas iyo NFD, dhaqaale lagu aruurinayay halkaas iyo galbeedka Soomaaliya ayuu maray. markuu marayo magaalada Jijiga ee xarunta gobolka Soomaali galbeed ayaa gaariga waxaa istaajisay tuugo. ilaa tuugo xilli kasta waa jiray. tuugada marka gaari istaajisay ayagoo doonayo inay dhacaan baartaan, marka gaariga ee koreen waxay ku arkeen sanduuq weyn, waa sanduuqa macna lacagta loo aruurinayay ee xisbiga loo soo waday. sanduuqa korkiisa waxaa ku dhegan calanka SYL, calanka SYL ku dheganaa. markaas marka tuugada aragtay calanka SYL oo sanduuqa ku dhegan bes fasaxantiin gaarigu waa fasaxanya qaado meena bay dhaheen dhaqaale ama lacag loo aruurinayo Soomaaliya inay gaarto xornimo gaarto ma qaadayno, waa naga fasax. allahu akbar, waa cajiib. waa tuug halkaas taagan ee inuu dhac bulshada muslimiinta u taagan ayaa markuu arkay sanduuqii ama calankii SYL markuu arkay aad u qirooday ee yiri xoolihi aan dhacaynay ma ka mid ahan. haddaba aqoonyahanka maanta joogo waxaa ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka wadaniyad badnaa tuugii xilligaas joogay. dadkii xilligaas maanta joogo ee gebigooda warbasoore ah, dakaatiro ah, ee ka yar PhD iyo magister haysto, haddii xilli loo magacaabo midka waxaa ka bilaabaa soo ku dhici lahaa kow isla markiiba soo ku hantida dadweynaha soo ku boobi lahaa. tuuga xilligaas jooga marka jid hortaagnaa ee u soo baxaba ee qori u soo qaatay inuu wax dhaco ayaa hantida dadweynaha ka leexday. maanta adiguna waxaa sheeganaysaa aqoonyahan, bal dib isku fiiri, isba bardhig adiga iyo tuugaas kaa sharaf badan. adigoo aqoonyahan ah lagu aaminay inaad qalin wax ku xadid ama qalin wax ku qaadatid, iyo ninkaas tuuga ah ee bulshada Soomaaliyeed u nabadgeliyey hantidoodii. allahu akbar. dhacdada labaad, gaarigii si ammaan ku yimid Muqdisho, dhaqaalihii lagu keenay alxamdulilah. dhacdada labaad waxa ay tahay SYL waxay bulshada Soomaaliyeed ku baraarujisay, bartay in laga tago qabyaaladda. iska dhaaf qabyaaladda waa qurun. nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam dacuuha, ka tago nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qurun. markaas qof kasta ayaa taa Soomaaliya bes Soomaaliya anfacdo. waxaa la yiri nin oday ah ayaa waxa uu tegay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay. wuxuu shaah ka iibsanayay ama shaah ka cabayay meel bibita yar ah. gabar Soomaaliyeed ayaa shaah gadanaysay. oday marka wuxuu yiri shaah iyo keen, shaah oo keentay. markaasuu yiri hadda odayaashu way u badan yihiin ilaa xilligan xataa waxaa la yidhaha qabiilka aad u danayaan. maadhayaa tahay ayuu ku yidhi, waa gabadhii saas u fiirisay. waxay tiri waxaa ahay Soomaaliya ayay tiri. inaa Soomaalita ku jeedaaye waa ka muuqtaaye qabiilkaaga waa kee? aniga tiri Soomaaliya waxaan ka tiri SYL. SYL kasi ahaa tiri SYL ma xumo oodan nahay, laakiin qabiilkaaga waa kee? waxay tiri iga kaca kursiga, shaahna kaa gadan maayo. haddaadba Soomaaliya qabiil u kala raadinaysid oo yaa tahay iyo waa qoladee iyo aad ku heysid dhigata kursiga. way boris shan kabsi ma tiri wuxuu shan iga bis waxaan ku dhibaniga lagama yaabay tiri
waxay cabsaneed hadafka SYL oo ahaa in laga tago qabyaaladda mana kuwan yeeyihiin qolada waa kuwa kadibna jifo laisku diriro laisku laayo halkaasna wuxudadii iyo midowgii halkaas ka baxayo maxaa yeelay waxaan anfacayo anaga keliya waxay tahay uun islaamnimada ka sokow soomaalinimada haddii markii qabiil meel loo kala dego reebel uma geli karaan la yidhaahdo si dartaan jirtaba oo hadhow dagaalkaas ka dhaco haddee wax raadinayo tii guud ma jirto alxamdulilah SYLna way ku mahadsan yihiin ilaahna ha u naxariiso dhammaantood intay ka qayb qaadatay dib u dhiska waddankan iyo xoreyntiisii ka qayb qaadatay waxaa leenahay qubuurta loogu waasico loogu naxariisto raggaas rag waxa ayna soo dadaalay xilligeeniyaa la marayaaye maxaa ugu talagalnay bal waddanka maxaa ugu talagalnay diinta maxaa ugu talagalnay mase waan iska fiirsanaa un keliya marka halkaas soo gabagabayna billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu